Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Casharadeenii oo Flutter ayaan sii wadanaa. Halkaan imaanaynaa markaan folder halkaan ku abuuranaynaa. Markaa folder halkaan ku abuurano, folderkan waxaan u baxsanaynaa auth. Enter aan leenahay. Isaga kor tegaynaa new file aan leenahay. Markaa dhahno waxaan leenahay auth dash controller dart. Bacdi markaa halkaan imaano class halkaan ku abuuranaynaa. Class markaan ku abuurano class name aan sheegaynaa auth aan leenahay controller. Classka markaa halkaan waxaan leenahay function noogu abuur oo functionka waxaan u baxsanaynaa maadaama hadda aanan u baahnayn future ayaa ka dhiganaynaa. data typekiisana waxaan leenahay string. Kabacdi halkaan markaan imaano name u bixinaynaa. Bacdi waxaan leenahay registration oo kale registration markaan dhahno halkaan waxaan u baasaynaa parameters stringi aan leenahay. Stringigan iyo waxaan waxa waaye inta shay uu ka kooban yahay applicationkii aan sameynaynin. Meeqa shay oo ka koobnaay waa name, email iyo password. Intaasaan rabnaa inaan u baahsano halkaan. Waxaan leenahay markaa waxaa ugu horeeya name ugu horeeya, waxaa ku xigo email ku xigo soomaa. Email waxaa ku sii xigo password. Bacdi waxaa leedahay halkaan aa imaanaysaa. Halkaan markaa imaadid waxaa u baahan tahay inaad sameydid markaan try and catch ayaa u baahan tahay. Marka waxaad sameynaysaa halkaan aa leedahay. Halkaan aa imaanaysaa waxaa ku qoranaysaa codeki. Marka intaana codeka qorin halkaan aa imaanaynaa waxaan leenahay final markaan dhahno hadda ogtihiin markii hore waxaan halkaan soo gashanay Firebase authentication ayaa halkaan soo gashanay. Marka waxaan rabnaa inaan isticmaalno hadda. Si halkaa hadda u isticmaalno waa inaan inta uga oo yacni instance ugu abuuranaa. Si markaan ugu abuurano waxaan leenahay magaca sheegaynaa Firebase authentication. Waxaan leenahay kabacdi name u baxsanaynaa magacadan kan ugu horeeya noogu bixi. Kabacdi waxaan leenahay magaciisa soo celinaynaa Firebase authentication .instance. Kabacdina semicolon ku soo xirinaa. Semicolon markaa ku soo xirno halkaan aa imaanaynaa. Halkaan markaan imaano waxaan leenahay if aan leenahay marka hore if markaan dhahno waxaan ayaan jaangaraynaa failashan oo yacni saddexdan shay nameka, emailka iyo passwordka inay wax ku jiraan iyo in kale. Leena qofka haduu wax ku soo qorin sign up ma la dhahayo. Haduu wax ku soo qorane waa la barsgareynaa. Marka kan ugu horeeya waxa waaye waa nameka if haddii nameka is not empty uusan faaruq ahayn. Sidoo kaleeto emailka asagana waxaan leenahay dot is not empty. Asagana waxaan u baahannahay passwordkaas. Waxaan leenahay password dot is not empty. Waxaan u baahannahay in noola abuuro markaa akoonkeeni. Haddii intaan shuruudaan la soo buuxiyey oo meeshaan faaruq ahayn in noola abuuro. Marka halkaan aa imaanaynaa waxaan leenahay kabacdi markaan dhahno inta imaanaynaa. Inta markaan imaano waxaan leenahay credential oo kale waxaan leenahay user create oo kale iskaga baxso
kabacdi waxaa lahdaa equal ayaa leedahay firebaskan magacii aan u bixinay soo xasuuso ayaan u canaynaa wax noo qaabilsan authenticationka noo qaabilsan yahay dot waxaan leenahay marka create ayaan leenahay dot create user with email and password saas dhahno halkan semicolon noogu soo xir marka halkaas semicolon kusoo xirtid halkan waxaan ka dhigaynaa await ayaan ka dhigaynaa si yacni ay u noqoto marka waa kaasaa marka hadda halkaan imaanaynaa halkaan markaan imaano waxaan rabnaa inay annaga hal wax le aan helno stringi in noola soo celiyo oo either success or yacni maxaa ahay error labadaas mid waa in noola soo celiyaa marka waxaan leenahay stringi resulti ayaan waxaan leenahay error kabacdi halkan waxaan leenahay halkaan imaanaynaa return aan leenahay return leedahay waxaa leedahay ha celiyo result le ha celiyo wax kale yoo celin errorkan credential adcast yeah waxaan dhihi karnaa oo kale dot create username and password kabacdina waan soo xiranaynaa semicolon ayaan kusoo xiraynaa halkaana imaanaysaa waxaad leedahay credential ayaa leedahay markaa dhahdeed waxaa leedahay crate oo kale iska leedahay equal ayaa leedahay marka halkan weli errorka waa ka bixi layahay kastiyo rabaa control dot deh await aa leedahay meeshaan control dot okay as credential kastiyo noogu sameeyey dhib malahan marka waxaan leenahay halkan markii intaan la sameeyo markii akoonka sidaaba loo abuuro hala soo celisho resultiga hala soo celisho oo resultiga la update gareeyo resultigana waxay lamid tahay waxay lamid noqonaya markaas success lama noqonayso liannahu iwaab laasaan abgareeyey ilaasaa laleeyahay haddii kale resultiga hala ekaado wax foomka ama buuxi foomka buuxi kabacdi iska soo xiraysa marka
halkaan aan imaanaynaa halkaa kan haysto wait weliba dhano xaligana half get email and password markaas ano anaa qabanaa waxaan noogu shubo ayaga la hayo trick trickkaas noqdo datakiisa credential credentialkan user user credential markaasaa user credential marka intaan hadda waxaan ku sameynay sign upki kabacdi waxaan imaanaynaa halkaan imaanaynaa halkaan markaan imaano waxaana iska diraynaa inoo dhowna qabsanayaa ama aad intuusa inoo la qabsadaan kale leedaa leenahay waxaan u baahannahay inaan dibka isticmaalno stringi aan dhahdo marka hore name oo kale adi late stringi email oo kale haddana waxaan leenahay late haddana waxaan leeyahay string markaan dhaho waxaan leeyahay password waa kasaa doona qabsaday marka waa kaasaad qaybaha dambe ayaan dhamaystiri doona hadduu ilaa yaraado